caruurtani agoonta ayaa in muddo ah wax ku baranayay guri kira ah kaasoo ay kafaala qaadeen ganacsatada jaalidaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibadiisa saakay tomanan booqday xarunta agoonta ee Ugaas Khaliif ayaa halkaasi waxaan kula kulmay caruur si weyn loo daryeelay xilli ay ku guda jireen waxbarashadooda qaar ka tirsan caruurta ayaan wax ka weydiiyay waxa ay baranayaan iyo waxa ay ka codsanayaan walaalowda muslimiinta ah ee u kala fiirsan dunida dacaladeeda maray TV-ga caalamiga Somali Channel ay ugu warbixiyeen عبد الله محمد محل كانوا كبرتها أبو بطل سوق روحاني كان سوق قرآن الكريم كان دزا واحد قدر من حال كان سوق مادة تربية عربية صلى الله ما دام ما أنت إلى قبل سنة عالم كا محل جيدين لهاي بالشدة المسلمين تقول لي سنيسة أما كداونيس مسلمين كداونيس وحان كبريا هنا نوضع صيام مشان أول سنة نبيان الكذا يقولون ونوق بيلمن عافي محل كان معك كبرتها أنا كبرتها سبعة جد وشيء قرآن الكريم كبرتها سجيت سوي جد بيان كبرتها المواد الحساب تبع حساب تي عربي والجغرافي دي تاريخ كبرتها مركا معك عسل كمسلمين تاعي كل داونية معك عسل هاي معك عسل يعني ضد كي داونية إني نودي قرقارين ماشي نلو ديسا وكلنا ندلو بوبوسينا نغد بحيان موليد أحمد كرام موليد هل كان معكم بركة؟ قرآن وسكول قرآن وسكول وعبرشد على البركة القرآن كما لقيت معك ولا بركة؟ صومالي حسابي عربي إنجليزي هاي المركة القرآن كيف قلتها؟ كل رسول الله guddigani ku xulan arrimaha dibudhiska xarunta agoonta ayaa sheegay saakay kuna ay ku yeesheen iskuulka Buundaweyn oo ah goobta loo diyaarinayo kolleejka ayaa waxa isugu yimaaday ganacsato culimo awdiin nabadoon iyo odayaal iyo dhalinyaro ka kala socotay xaafadda Buundaweyn taasoo ay mas'uuliyiintii ka hadashay ay isku raaceen in caruurta agoonta kolleejka loo diyaariyo iyadoo lala kaashanayo jaalidaha Soomaaliyeed ku dhaqan dalka dibadiisa Xaaji Cismaan Dhagaxow Cabdiqaadir Nuur Liibaan iyo Cabdullaahi Yusuf Gaab iyo rag kale iyo culimo awdiin ayaa iyaga halkaasi ka jeediyay in jaalidaha ku dhaqan dalka dibadiisa ay cid walba ee gacan ka geysan karta goobtan cusub hadda loo diyaarinayo inay markaasi u soo gurmadaan iyadoo halkaasina ay ka hadleen rag magaca ku leh bulshada walaalayaal agoonta iyo in la dhaqaaleeyo oo laga warqabo oo إحسان لو سمايو دينتنا إسلامك dadka muslimiinta aad ayay ugu boorisay aayadaha quraanka oo aan akhriyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaalaha culus oo dadka muslimiinta looga baahan yahay inay sameeyaan waxa kamid ah in la quudiyo oo wax la siiyo qof agoon ah oo waliba qaraabo ah waxaan horta aad iyo aad u salaama xulumaad diinka wax garadka ganacsiga isku yimid meesha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan dibadeed dadku marka isku yimaado waxa ka soo dhaxbaxo fiican doona isku imaan waxa ka soo dhaxbaxan ana ku hadlaa afka odayaasha xaafadan markii la qaybinayo waxa na soo gaartay ama ahaada nin boqol wax diida ama nin war Axmed Tashiilaha aateena ganacsiga dhisana oo warshado laga rabo ilma agoontaan loogu soo gabana annaga saasaan soo gaar runtii beledku waa warkaas waa yaala maanta waa nimaa nala diriro yiri hadan baabina agoon loo dhismaa meesha isku tigina laba nimaa lahayn anay sheekaan aad iyo aad marka waxa ay farxad geliday ilmo 300 anuga oo agoona oo kuwaynana agoonnimada suugan kuwaana agoon hortay noqday in la dhaqaalay oo gargar iyo deyn lagu dhaqaalay wax lagu baro wacdi haday lahayd iyo hadii ay aqli lahaydna culumaa nooga horeysay waxaan ka qayb galaynaa hadaa leedno aqli iyo af iyo anfaac waxaan ka qayb galaynaa agoonta ninkii wax naga maqlaa wax bixina inaan la hadalno dibadii gudaha meel u jira dadku marka waxa uu yiraahdo dibadda anu habaabaa jira meeshaan waxa ka muuqata sharaf farxad naga
meeshaan 21 sano ayaan joognay waxaan iskoolkan ka qaadi jirnay dameero bakti ah eeyo bakti ah waxaan isku dardiri jirnay shilin waxaasoo dhib ah ayaan ka soo marnay wax la og yahay weeye macruuf wey anigu ka hadli maayo culummada si wanaagsan ee wax noogu sheegeen allah nagu anfaco khayru macruufun waxayna fareen waxyaabo macruufa oo fara badan ee culummadana fareen allah nagu anfaco xoogaa yar muxuu ahaa xaaji dhagaxow meel yaro taabtay aan rabaa inaan iska rowno xaafaddan wax badanaan joognay ilaahana ku mahadinaa cimriga ayadana waa u jeediyey markaan lahaa daawo markaan imid aawi dhaqane hadda waxaa ka haray odayaashii waa laantaan fiil tare anigiiyo dhaqanaa ka haray runta taas wey odayaashii kale ka soo bilow xaaji dhafaa webi u xigo ku gey caasho bundaweyn hal qofi kama joogo horta meeshaasaa la wada maraa ninkii khayr tabcadana khayru hela kii kalena isagana waa dhumaya oo kuwa dhumaa jiro haddaba annaga aan ognahay horta raalli waxaa ka ahaada raggii waxaan soo abaarulay dhagaxyo xooraayey dhagaxyahaas inaan ka celino agoonta lagu xooray inaan wax ka ilaalino waardiyo wax ka qabanno aniga cimrigaastan agoonta haddii la soo jirto waardiyaan ballan waayo habeenkii waa wareegayaa ilaa ma hurdo wax yaraan hurdaa meeshaan maxaa ka dhacay ayaan leeyahay waa taagan marka walaalahayna annaga u aqal celinayna xoogaa wax ka sheegay ayadoo kumanna waa si imaan doonaa mar kale agoontu waa wada ilaalinaynaa xaaji dhagaxoo baa yidhi martiyaa liiya martidaasi aniga xoogaa wax iga taabteen yaa wax kale ma tari karnee martidaa xasan cusmaan xuuriye oo isaga afhayeenka guddiga maamulka xarunta agoonta Ugaas Khaliif ayaa goobta ka akhriyay dhalinyarada lacagaha ugu deeqday oo ka soo diray dalka dibadiisa xasan cusmaan xuuriye ayaa sidoo kale ka codsaday walaalaha muslimiinta inay u soo gurmadaan xaruntan agoonta Ugaas Khaliif oo hadda loo diyaariyay goob cusub iyadoo goobtana ay yaaleen jaay nuurad ay sadaqaysteen qaar ka tirsan bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam أما بعد مركو هره وحنو مهد علينا دمان علماء odayaasha dhalinyarada iyo maaragtay ganacsada guud ahaan ka soo qayb gashay kulankan aan maartay ku soo bandhigaynay dhismaha dhulka agoonta loo dhisayay sidoo kale waxaan mahad celinaynaa saxaafadda qaybadeeda kala duwan ee halkan maartay goobjooga ka ah sida maartay Somali Channel TV, Hon Cable TV, idaacadda codka Hiiraan iyo Hiiraan Online intaa kadib wax badan waa laga soo hadlay agoonta iyo dhismahan iyo waxyaabo kala duwan intii hore loo yidhi in lagu noqdana waqtiga ayaa maartay ku lumaayo marka hore waxaan u istaagay inaan u mahad celiyo runtii fikirka dadka ay qabeen oo ah dhaqaale badan in halkan lagu soo qaatay oo maaragtay in lagu cuno lacagtiina la cuno meeshaana lacaglaan lagu helo fikirkaas dadka qabay kolley waa laga jaahil bixiyey laakiin waxaan rabaa dhaqaalihiina soo gaaray walaalihiina soo gaarsiiyey inaan halkan ka sheegno runtii sababtoo ah tuhun badan ayaa qurbaha iyo gudaha ka kala jiro dadka qurbaha waxay aaminsan yihiin dadka gudaha lacagaa la soo diro $100 70 injaabka laga jiro 30 wax lagu qabto sidaas aawadeed wixiina soo gaaray oo hawshaan fududeeyey inaan horta marka hore meeshaan aan ka sheego dadkii nala joogan ay dhegaystaan dadkii soo diray maartay insha Allah taala inala arkaan haddii aan marka halkaas ka bilaabo $1246 ayaa waxaa la soo gaarsiiyey Cabdifataax Qaasim Maxamuud oo joogo dalka Sweden $50 waxaa la soo gaarsiiyey Cabdiraxmaan Maxamed Yuusuf oo Mareykanka joogo $100 waxay naga soo gaartay Fardows Cali Maxamuud Gamaadiid oo Auckland New Zealand degan $300 waxay naga soo gaartay Cabdiqaadir Kaynaan Cali Sweden joogo Cabdiqaadir Kaynaan cilmi raali ahaada $300 kale waxay naga soo gaartay Cabdirasaaq Ashkir oo Austria joogo $1570 waxaana soo gaarsiiyey Maxamed Sheekh Cumar oo ahaa Mareykanka jooga $2,000 waxaana soo gaarsiiyey gabdhaha xawaadle ee Norway $2,000 kale waxaana soo gaarsiiyey gabdhaha xawaadle ee Toronto Canada degan $2,000 waxaana soo gaarsiiyey gabdhaha xawaadle ee Denmark $3,000 waxaana soo gaarsiiyey gabdhaha xawaadle ee London
oo ay ka wakiilo lacagta ku qornaaday Saacadiyo Cumar Xubur $100 waxaan soo gaarsiiyay Shukri Yuusuf Axmed oo Holland joogta $200 saddex dhalinyaro oo magaalada Beledweyne degan ayaa halkan ugu yimiday oo yiri u Iiraan waa taageersanahay ay kamid tahay wax weyn maaha $200 waxaan soo gaarsiiyay Maxamed Axmed oo Minnesota Mareykanka jooga 9 kaariko ciidan aad arkaysaan oo halkan taalo 9 kamid ah in reer Beledweyne ayaa sadaqaysay isagana oo maartay ku sadaqaysay halkaas dhaqaalaha halkan soo gaaray oo hawshan lagu qabtay waa intaas waxa ka koray $2,000 oo aniga aan maartay ku daray intaas waa inta wax lagu qabtay nana soo gaartay hawshan qabatay shilin kala meel noogama imaanin taas maanta waxaan idaacadaha television kulliyan ku cadeynaynaa inaan fan kale uusan soo gaarin intii aan haynin intaanay qabatay waxaan ka codsanaynaa gudaha iyo dibaddaba inta khayrka jecel ee samafaliyaalka ah ee khayrka qayb qaadato in ay nagala qayb qaataan dhamaystirka inta ka hartay dhulka cusub ee loo dhisay agoonta xarunta Ugaas Khaliif iyadoo sidoo kale qadka isgaarsiinta halkaas uu kula soo xiriiray Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Khaliif oo ku sugan dalka dibadiisa isagoo hadallo kooban ka jeediyay ayaa ugu baaqay in caruurtaas loo soo gurmado cid walba oo gacan ka geysan kartana ay tahay mid u furan dhammaanba ka soo qaybgalayaasha kulankani ayaa u riyaaqay hadalka ka soo yeeray guddiga xarunta Ugaas Khaliif ee ku wajahan in agoontani wax loo qabto taasoo ay tahay mid lagu liibaanayo adduun iyo aakhiraba. Ismaan Aadan Carays TV-ga caalamiga Somali Channel Beledweyne.